Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha khayrka jecelow kusoo dhowaada barnaamijkii aan u ballansanayn ee tijaabi aqoontaada diimeed ee ahaa su'aalaha iyo jawaabaha diiniga ah qaybtiisii koowaad. Wuxuu barnaamijkeena maanta ka koobnaan doonaa 20 su'aalood iyo jawaabahoodii, laakiin waa kuwo aad u sahlan maadaama uu barnaamijku maanta uun bilow yahay. Waxaad isku daydaa inaad ka jawaabto su'aalaha inta aanad jawaabta soo gudbin. Sidii ballantu haydba waxaynu isa siin doonaa sikino yar, kadibna xisaabso inta aad ka jawaabtay iyo inta aad garan weyday midkee badan. daawasho wacan. Adaan wanaagsan, taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Waan bilaabanaynaa barnaamijkeena. Su'aasheena koowaad waa tee suuradda ugu dheer Quraanka? Waa suuradda ugu dheer Quraanka. Jawaab wacan. Aljawaab, dabcan waad ka jawaabtay, waa suuratul Baqara. Su'aasheena labaad waa meeqa tirada suuradaha Quraanka Kariimka, ama meeqa suurad ayuu Quraanku ka kooban yahay? Jawaab wacan. Aljawaab, waa 114 suuradood. Adiga waad garanaysaa. Su'aasheena saddexaad waa suuradda ugu gaaban Quraanka? Waa suuradda ugu gaaban Quraanka Kariimka? Aljawaab, waa suuratu Al-Kawthar ama Innaa Acdayn. Su'aasheena afaraad, meeqa nabi iyo rasuul ayaa lagu sheegay Quraanka Kariimka ah? Meeqa nabi iyo rasuul ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay Quraanka Kariimka ah? Jawaab wacan. Jawaab, waa 25 nabi iyo rasuul. Su'aasheena shanaad, waa maxay cayayaanka iyo shimbirka hadlay ee lagu sheegay Quraanka? Waa maxay cayayaanka iyo shimbirka hadlay ee lagu sheegay Quraanka Kariimka ah? Jawaab, waa quraanjada iyo shimbirka lagu magacaabo hudhudka. Su'aasheena lixaad, muxuu ka shaqayn jiray Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam? Maxay ahayd shaqadii Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam? Jawaab, wuxuu ahaa nin sancaalo ah oo wax sameeya. Su'aasheena toddobaad, muxuu ka shaqayn jiray Nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wassalaam? Maxay ahayd shaqadii nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam? Jawaab, wuxuu ahaan jiray mid raaca adhiga oo dhaqaaleeya, ka dambana wuxuu noqday ganacsade. Su'aasheena sideedaad waa suuradda aan ku bilaabanin bisinka ee aan wax bisin ahba lahayn. Suuraddaasi waa tee? Jawaab, waa suuratu Tawba, ama ay Soomaalidu u taqaanaba bara bisinla. Su'aasheena sagaalaad waa suuradda labada bisin leh. Suuradda ay ku jiraan labada bisin waa suuradee? Jawaab wacan. Jawaab, waa suuratu Namli ama laba bisinley. Su'aasheena tobnaad, waa ayu qofkii ugu horreeyay ee sooma? Yuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sooma? Jawaab, waa Nabiyullaahi Aadam calayhi salaam. Su'aasheena 11aad waa suuraddii ugu horreysay ee kusoo degta magaalada Makka? Suuraddii ugu horreysay ee magaalada Makka kusoo degta waa suuradee? Jawaab, waa suuratul Calaq ama Iqra bismi rabbika alladii khalaq. Su'aasheena 12aad waa salaaddii ugu horreysay ee nabiga lagu waajib yeelay calayhi salaatu wassalaam? Salaaddii ugu horreysay ee nabiga lagu waajib yeelay waa salaadee? Jawaab, waa salaada duhurka. Su'aasheena 13aad waa ayu makhluuqii ugu horreeyay ee dhaha subxaana rabbiyal a'laa? Makhluuqii ugu horreeyay ee dhaha subxaana rabbiyal a'laa waa kee? Jawaab, waa Israafiil calayhi salaam, oo ah malaga loo wakiishay inuu afuufo suurka qiyaamaha. Su'aasheena 14aad waa shayga ugu horreeyay ee uu Alle dhisay? Shayga ugu horreeyay ee uu Alle dhisay waa kee? Jawaab, waa samada.
su-aasheenna 15aad meeshee ayay ku dhimatay nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam hooyadii? nabigeena hooyadii meeshee ayay ku dhimatay? jawaab: waxay ku dhimatay meesha lagu magacaabo abwaa oo ah meel u dhow magaalada madiina. su-aasheena 16aad waa maxay waxa lagu magacaabo xajka yar? alxajul asqar waa maxay? jawaab: waa cumrada. su-aasheena 17aad suuradda ugu weyn qur-aanka? waxaan soo maray suuradda ugu dheer, laakiin tan midda ugu weyn weeyaan. jawaab: waa suuratul faatixa. su-aasheen 18aad waa suuradda aan lahayn wax miim ah? suuradda aan ku jirin xarafka miim waa suuradee? jawaab: waa suuratu alkawthar ama inaa acdayn. su-aasheenna 19aad waa ayo qof lagu magacaabo asadullah, libaaxii ilaahay? waa qofkaas? jawaab: waa xamza bin cabdimudalib radia allahu canhu wa ardaah. su-aasheenna 20aad ee u dambaysana xaggee lagu dilay xamza bin cabdimudalib? intee lagu dilay xamza allaha ka raali noqdee? jawaab: waxaa lagu dilay oo uu ku shahiiday dagaalkii uxud. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkaadan. inta ayuu noogu egyahay barnaamijkeeni maanta. haddii aad u bogtay barnaamijkan ha nagala bakhaylin inaad sabskaraib dhahdo janelka Ilayska Islaamka. hana mogaanin qaybihiisa kale, hana ka cajisin inaad sii gaarsiiso walaalahaada kale.